mujaahid daa'uud khayre kaahin oo ka mid ah aqoon-yahanka odayaasha iyo siyaasiyiinta dalka ayaa maanta harimo sharafeed u sameeyey korneyl duuliye sare axmed maxamed xasan oo ahaa duuliye diyaarad dagaal oo nidaamkii siyaad bare amar ku siiyey inuu duqeeyo magaalada Hargeysa bishii Julaay sanadkii 1988 duuliye sare axmed maxamed xasan oo qaadan kari waayay amarka ah inuu duqeeyo shacabka magaalada Hargeysa oo isla diyaaradu ka kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa wuxuu go'aansaday inuu diyaaradii dejiyo magaalada Djibouti oo amarkaasi jabiyo harimo sharafeed kan maanta loogu sameeyay hotel Lake Asal ee magaalada Hargeysa oo ay ka soo qayb galeen mujaahidiin aqoon-yahano iyo odayaal dalka magac ku leh ayay ku maamuuseen go'aankii geesinimada lahaa ee uu qaatay duuliye sare axmed maxamed xasan ee uu ku diiday inuu duqeeyo shacabka magaalada Hargeysa daa'uud khayre kaahin oo isagoo casuumaadan sameeyay ayaa ku bogaadiyay korneyl axmed maxamed xasan go'aankiisii ninkii damiirka lahaa dadkiisii yidhi moogtay anuu duqayn maayo goostay inuunu duqayn ee soo duqee la yidhi intuu ku noqday way dhici weyday haliibaa iga ma dhacayaan sawaariikhdani ee la yidhi noocayna ku soo rid intuu meel bannaana iskaga riday iskaga baxayna go-aan ku gaadhay horta waa nin damiir leh waanu ku yaryahay dadka ninkaasoo kale geeska Afrika iyo meel kastoo bini aadam damiir le joogana magac buu ku yeeshay kuwa yareed wax iminka sawiraya wax kuwii aad badbaadisay way ku dhici lahayd maadaam sawaariikhdu way ku dhici lahayd waa da'dii moogtahay la leynayay ilaan maanta la leynayay maanta hooyooyinkii carruurtii waxay isasukad yaa la leynayay mujaahidiintii iyo aqoon-yahankii kale ee goobta ka hadlay ayaa dhammaantood waxay ku nuuxnuucsadeen inuu tusaale nool u yahay axmed maxamed xasan go'aanka uu ku diiday inuu shacabkiisii uu duqeeyo iyaga oo ku bogaadiyey go'aankii geesinimada lahaa ee waqtigaasi qaatay ayaa waxay yiraahdeen axmed waxaan leeyahay waa dhulkaagii ku soo dhow waa dhulkii aad badbaadadiisa ka shaqaysay wixii waddankan soo maray waynu garanaynaa iyo wixii ummaddan soo maray waxa weeye ninkan raggii soomaalinimada iyo karaamadda muujiyey weeyaan ee mabda'a ku dagaalamayey oo inaan lagu odhan karin dadkaaga rushee iyo dadkaaga lah waxaan ku leeyahay ku soo dhowow maalintii uu soo duulayay maalintii ka horreysay baan goor maqriba magaaladii muxuu xamar ninkii garanayay baarjanaale ayaan isku aragnay halkii buu igu yidhi wariyaa shirwacow beritaan duulayaa xaggee u socota Hargeysaan u socda kaasani adigii ayaa markaasuu yidhi anigiiyo Yuusuf Yare kaasa waan ogaa Axmed Yare inuu sanado badan uu iska fadhiyo buulka ku jiray aanu duulin kaasaan ku yidhi sideed u duulaysaa markaasuu igu yidhi war 2 usbuuc baan halkii Beledoogle ku soo yara duulduulnay markaa berito ayaan tegayaa markaasuu igu yidhi waxaan samayn doonaa caalamku maqli doono markaasaan in darsi laga qaatay qolooyinka raba hadda inay wax si duqeeyaan ama dagaal galaan waxaan dheerahay balka waan tooba oo ku dayda ma aragtay qofka wanaagsan ninkan odayga axmed maxamed xasan waa ninkii duuliyaha ahaa ee berigii diyaaradda inuu Hargeysa duqeeyo diiday ee naftiisa uga bareeray inuu meel cidla ah fadhiisto iskuna ogeyn inuu badbaadiyay kale ilaahayna waa badbaadiyay qofkii sama ku dadaalaana wanaageedu helaa gabagabadii korneyl axmed maxamed xasan oo loo sameeyay harimo sharafeedkan ayaa wuxuu ka mahad celiyay soo dhaweyntan ay odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanku ay u sameeyeen waxaana uu yidhi halkaan uga mahadinayaa dadka qoryaha qaatay ee xoreeye Somaliland iyo Soomaaliyaba waxaan xusiistaa nidaamkaas waqtigaas jiray 75 yaasiin waxaan nimid aniga yaasiin oo qaahiro ka nimid oo fasax u nimid
dugsiga shanaadana la geeyey waxaa la yidhi fasaxi airboortka bas lagu sugayaan aan nimid meeshaan guryaheena ka aadi lahayn waxaana la geeyey dugsiga shanaad meel la yidhaah hanuunin ah guutada labaad dhinaceeda oo la leeyahay dad waxaa tihi maaragtay xun oo u baahan in wax laydii sheego warar nagala soo gudbiyey inaana daacad ahayn dad oo kale markaasoona la dareemay inaan sharafka qofka sharafkiisa in olaashado wax ka qiimo badan ma leh wax dulinimo iyo qaabdarro iyo maxay yidhahdaa wix la doono laga sameeyo markaasaa nidaamka aragnay inuu nidaam khariban yahay waa 75 waay inta ka dambaysa waxaan leen yaa dhaqaaqi kara cid dhaqaaqaysa raadin cid dhaqaaqa la waay waxaa mahadsan marka dadka qoryaha qaateen oo mujaahidiintu ay ka mid yihiin oo dagaalameen oo noo bilaabeen aad iyo aad u mahadsan maalintan halka imiday hargeysa waxaa iga horeysay hal habeen oon ku hoyday waqtigaas ka hor hargeysa ma aqoon weligay waan jeclaa magaalooyinkan ugu jeclay ka mid ahayd maaqa qalbigayga wax jeclaysiiya laakiin magaalooyinka aan jeclay ka mid ahayd anoon weligay arag dadka ka yimaadna waa xiisay jiray dad walaalaa oo maxay idhahdaa aan aad u jeclayahay